بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرا شرفت اللي كحرن kanaalkeena Baraaf Ingiriis. waxaan idin leeyahay haddii maalinku tahay maalin wanaagsan, haddii habeenku tahay habeen wanaagsan. Cashirkeeni maanta waa cashirkeeni sagaalaad qaybtiisa koowaad. waxaan idin soo jeedinayaa aniga waa Zakariya Maxamed. haddaan dib idin xasuusiyo cashirkeena wuxuu ku saabsanaa possessive oo ahaa qaybtiisa ugu dambeysay oo aan ku baranay whose kuma iska leh, whose kuma iska leh. maanta waxaan kaga hadlaynaa articles plus noun. articles plus noun. cashirkan intaan guda galin ayda faahfaahsan, fadlan haddaa kanaalkeena ku cusub tahay subscribe, share, like si anaga inoogu noqoto dhiirigelin aadna aad uga faa'iido wax badan. hana ilaawin hadda cashirkan ku cusub tahay fadlan cashirkeeni koowaad kasoo bilow ama cashirkii ugu dambeeya meesha joogtay baa saa ula qabsatid oo soo gaartid halkaan maanta taagannahay. mahadsanid. intaan cashirkeeni guda galin waxaa idin xasuusinayaa inaan bilownay kalaasyo cusub oo lagu baranayo luqadda Englishka qaybteedii hoose ee ka bilaabanayso alfabeetada. qaybteedii alfabeetada cashiradana waxaa usoo gudbinaa si maqal iyo muuqaal ah anagoo isticmaalayna aaladda Zoom. fadlan hadda xiiseynayso commentiga hoose inoogu reeb, anaga idinla soo xiriiri doona. mahadsanid. haddaan guda galo cashirkeena faahfaahsan waxaan ku baranaynaa articles plus noun. articles waa kuwan, article aan ka hadlayno waa kuwan. qaar ka mid ah waan soo baranay oo cashiradeeni bilowga ahaa aan ku soo baranay. waxayna kala yihiin a iyo an waa soo baranay, laakiin maanta waxaa inagu cusub the inagu cusub. the haddaan yaro qeexo waxay tahay waxaan u isticmaalnaa markaan tilmaamayno shay qaas ah ama shay aan isla ognahay ama shay aan wada ognahay oo gooni u tilmaaman. markaan tilmaamayno waxaan ka hormarinaa the. waxaan ka hormarinaa saa hore usoo sheegnay ama dib aan xasuusiyo, markaan tilmaamayno ama erey ama xaraf uu ka bilowdo consonant ama shaqal ama shibane waxaan ka hormarinaynaa a. hadduu vowel uu yahay ama shaqal uu yahay waxaan ka hormarinaynaa an. okay, laakiin maanta qaabka aan ku baranayno wax yar oo ka yara duwan yahay sidii aan soo baranay. then waxaan sheegnay inaan tilmaamayno shay qaas ah oo shaygaas shay aan isla ognahay uu yahay. noun haddaa dib idin xasuusiyo wuxuu ku saabsanaa person, place, animal iyo things. person haddaan dhahno waa qof. qofna wuxuu kala baxaa dumar, rag, wiil ama gabar iyo magacyadooda uu kala baxaa. place waa meel sida wadan, isbitaal, madxaf, beerta xayawaanaadka iyo meel walba oo dad isugu yimaadaan ama meesha doonta ha ahaato yaan isugu imaan oo meel ah waxay soo hoos gashaa place, waana noun iyo magacyadooda baxitaa waa noun. animal waa xayawaan. xayawaanadu kala baxaan marka noocyo fara badan ay leeyihiin. bisada ugu horeyso, geel, ari, geri, baciid, shabeel, libaax, maroodi, kulli iyo intii soo hartayba waxay soo hoos galaan noun. things waa shayo. shayaasna waxaa ugu horeeyo qalin, sabuurad, shaar, microphone, wax walba, telefoon ha ahaado, camera ha ahaato, gaari ha ahaado, wuxuu doon ha ahaado, ama xataa qudrada kulli dhammaan qudarta aan isticmaalno dhammaan waa shay, waa things ay soo hoos galaan. qaybtan dhexe haddaan u gudbo aan kaga soo hadlayno intaan hadda kasoo hadalnay ayagoo faahfaahsan waxaa ku baranaynaa articles plus noun. aan ku bilaabo marka. I watched a movie. waxaan daawaday filin. filinkaas iima tilmaano ama iima qeexin, qofna uma qeexin, kaliya waxaan tilmaamay guud ahaan filimaanta jiraan filin ka mid a inaan daawaday. waxaan dhahayaa I watched a movie. waxaan daawaday filin. qaybtan bidix ayadana waxaa ku haysanaa isagoo faahfaahsan oo isticmaalayno ereyga the. the movie was fun. the movie was fun. filinku wuu xiiso badnaa ama filinku wuu fiicnaa
ama filinka filin cajab u ahaa. marka the movie was fun, filinka wuu xiiso badnaa. Filinka xiisaha badan aan ka hadlayo waa midka aan daawado aniga, waa filin gaar ah, filimaanta dhan kama wada hadlayo. waxaan ka hadlayaa the movie was fun, waa filin gaar ah, midka aan daawadana uu yahay. De'daana waxay i tilmaamaysaa mid gaar ah inaan ka hadlayo, mid gaar ah aan isla ogna uu yahay. I ate a banana. I ate a banana. waxaan cunay moos. I ate a banana. waxaan cunay moos. mooskaas marka mid gaar ah aan tilmaamay ma jirto, kaliya waxaan dhahay waxaan cunay moos. marka dhankan waxaa igu qoran the banana was delicious. delicious macnaheedu waxaa waaye macaan. macaankaas waxaan u isticmaalnaa qudaarta aan cunno iyo cuntada nooc walba aan cunno. waxaa loo isticmaalaa dhadhankeeda markaan tilmaamayno inuu macaan yahay, aan dhahnaa the food was delicious ama the banana was delicious. marka delicious waxaa ka hormarinaysaa waxaa cuntay ama waxaa tilmaamaysid dhadhankiisa. anaga hadda waxaan tilmaamaynaa moos. tusaale ahaan moosa gacanta ku hayaa. waxaan rabaa marka mooska aan gacanta ku haya inaan tilmaamo dhadhankiisa. the banana was delicious. mooska aan ka hadlayo midka aniga gacanta ku hayo, ma aha midka meel walba iska yaala, maaha, waa midka aniga gacanta ku hayo aan ka hadlaya. waxaan dhahayaa the banana was delicious. qof walba wuxuu ogaanaya inaan ka hadlayo mid gaar ah. A lion, libaaxa, is dangerous. libaaxu waa halis. libaaxu waa halis. libaaxa inta aan kaga hadlayo waa libaaxo dhan, mid gaar aan ka hadlayo maaha, waa libaaxo dhan aan ka hadlayaa. A lion is dangerous. libaaxu waa halis. laakiin hal libaax gooni raba inaan tilmaamo marka. The lion is sleeping. libaaxa wuu jiifaa. midka jiifo waa mid aan wada aragno, inoo tilmaaman, aan wada jeedno anaga dhan, aan wada ognahay. The lion is sleeping. libaaxu wuu hurdaa. Sleeping waa hurdo. It is a dog. waa ay. It is aydin xasuusiyo waxaan u isticmaalnaa markaan tilmaamayno noolahan caqliga lahayn iyo ma noolaha. hadda ay waa noolahan caqliga lahayn, wuxuuna soo hoos galaa animals. animalsna waa nouns. It is a dog. isagu ama iyadu waa ay. marka ayga aan ka hadlayno waa eeyo badan. midkuu doonahada mid gaar aan tilmaano ma jirto. waa iska dhahnayo it is a dog waa ay. It is a dog waa ay. marka waxaan rabnaa eeyaha ay ka mid ah inaan tilmaano, marka mid gooni aan tilmaano oo muxuu ahaa wax aan ku garanno, aan wada jeedno. The dog is cute. The dog is cute. eeygu wuu qurux badan yahay. The dog is cute. eeygu wuu qurux badan yahay. eeyga quruxda badan waxaa waaye midka aan tilmaanay anaga, midaan noo tilmaaman. eey walba kama hadlayno, mid gooni ah inoo tilmaaman, ama gurigeena ha ku noolaado, ama xaafadeena ha degnaado, ama xaafadeena muxuu ahaa eeyaha ku nool ha ahaadaan. kaliya mid gooni ah inoo tilmaaman, aan wada jeedno midkuu doona ha ahaado. The dog is cute. eeygu wuu qurux badan yahay. hal ayaan ka hadlaynaa. It is an ant. waa quraanjo ama quraansho. It is an ant. waa quraanjo ama quraansho. quraanshada ka hadlayno waa mid walba midkeed doonta ha ahaatee, mid inoo gaar ah aan ka hadlayno gooni ah ma jirto. laakiin quraanshooyinkaas hal mid ay ka siman yihiin jirto. halkaan aan ku tilmaamaynaa marka. ant horta quraansho inay tahay waa isla ognahay, oo anaga dhan waa ognaa inaan ant ay quraansho tahay. marka waxaan dhahnaa the ant is small. The ant is small. quraanshadu way yar tahay. Small ereygan aan halkan ku haysano kama hadlayno tiro ahaan, kama hadlayno. waxaan ka hadlaynaa xajmi. xajmi ama jir ahaan aan ka hadlaynaa, ama physically aan kaga hadlaynaa inay yar tahay. quraanshadu inay yar tahay. The ant is small. quraanshadu way yar tahay. quraansho wada naqanaa. waxa nagu cusub muxuu ahaa midka xayawaanka ama cayayaanka nooga qaldamaya ma aha. It is the moon. It is the moon. halkaa marka waxaan way ka duwan yihiin. xidig waxa u saarnay uga duwan tahay waxay tahay it is the moon waa dayaxa. ilan dhowr dayax ma qabno, oo dayax walba midkuu doon ha ma dhihi karno. ilaa waxaa ognahay hal dayax bis inuu jiro.
dayaxaasna aan wada ognahay anagu dhan inuu hal yahay. The marka waxay ka tarjumaysaa hal show specific ah inuu yahay oo qaas ah. It is the moon waa dayaxa. It is the moon waa dayaxa ama iyadu ama isagu waa dayax. Dhankan marka waxaa ku haysanaa qaabka dayaxa uu samaysan yahay. The moon dayaxu is round. Ereygan round macnaheedu waa wareeg. Wuu wareegan yahay. The moon is round. Dayaxu wuu wareegan yahay. Asaga dhan wuu wareegan yahay. It is the moon. Iyadu waa dayax. The moon is round. Dayaxu wuu wareegan yahay. That is an apple. That is an apple. Kaasi waa tufaax. Kaasi waa tufaax. Tufaaxa aan ka hadlayno waa mid uun asagana. Mid noo gaar ah aan gooni uga hadlayno ma jirto. Waxaan rabnaa marka mid gaar ah inaan tilmaano. Tufaaxa aan wada ognaanay inaan wada jeedno ama arki karno inaan tilmaamo. Waxaan dhahayaa the apple. The apple is rotten. The apple is rotten. Tufaaxu wuu halaabay ama wuu bololay. The apple is rotten. Marka waxaan ka hadlaynaa hal tufaax oo gaar ah oo tufaaxyada kale ka duwan ama ka soocan aan tilmaami karno anagana aan u jeedno inuu yahay tufaax halaysan. Marka halaysitaankaas tufaaxa uu halaysan yahay waxaa dhahaynaa the apple is rotten. Rotten macnaheedu waa halaabitaan ama bolol. Inta ugu badan ereygan waxaa loo isticmaalaa qudaarta. Qudaarta noocyada kala duwan iyo fruitska loo isticmaalaa rotten. Rotten waa halaabitaan ama bololitaan. The apple is rotten. Waxaa filaya inaad fahanteen. Cashirkan saa hore u sheegnayba waa cashirkeeni 9aad qaybtiisii koowaad. Asagoo intaan kasii faahfaahsan oo tusaalooyin badan aan kusoo bandhigi doono waxaan ku baranaynaa cashirkeeni 9aad qaybtiisa 2 oo inoo noqonaya cashirkeeni soo socda insha Allah. Inteenan ka bixin muuqaalkan fadlan ha ilaawin subscribe, share, like si anaga inoogu noqoto dhiirigelin. Sidoo kale waxaan idin xasuusinayaa inaan bilownay class online ah. Classkaas oo aan kasoo bilownay alfabeetada ama ABCD-ga. Wuxuuna ku baxayaa si maqal iyo muuqaal ah anagoo isticmaalayna aaladda Zoom. Fadlan haddaa xiiseynayso ama qof ehelka ama qof asxaabtaada ka mid ah uu xiiseynayo fadlan inoogu reeb qaybta commentiga anaga idinla soo xiriiri doona insha Allah. Inteenan cashirka xiga ku kulmi doono waxaa idinkaga tagay khayr iyo baraare iyo barwaaqo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.